ku yaala gobolka Minnesota ayaa waxa ka dhex muuqday dukaamo markaasi ay leeyihiin dadka iyagu foreign-ka ama markaasi soo degay indhoweyd gobolkan Minnesota. dukaamadaasi ayaa waxa dad badan ay isku raaceen inuu markaasi uu horkacayo ama hormud uu yahay suuqa la magac baxay Holy Land. Holy Land ayaa markii hore waxa uu ahaa dukaan yar ka bacdina uu noqday dukaan weyn ka bacdina heer uu gaaray in markaasi laba loo kala qaybiyo midna laga furo North East-ga midna markaasi laga furo South-ka magaalada Minneapolis meesha iska gooyaan Lake Chicago xarunta weyn ee bilowga cusub ee hadda la furay. haddaba Holy Land waxyaalaha uu ku caanbaxay ma ahayn inuu markaasi qalab cusub ama waxyaalaha cusub uu keenay ee waxa weeye habka cunada ay u kariyaan iyo habka ay u soo dhaweeyaan dadka markaasi macaamiishooda ah. mar aan Holy Land booqanay oo aan dhowr sawir iyo video halkaasi aanu ka soo qaadnay ayaa waxaanu ka dhex muuqday shaqaalo markaasi ku hadlay afka Soomaaliga. dukaankaasi waxa aad moodaa inay ka shaqeeyaan runtii markaad eegto ajnabiye kala duwan oo ku hadlaya luqado kala duwan. taasi waxa markaasi ay u sahashay in uu markaasi helo macaamiil runtii aad iyo aad u badan oo qolo walbaaba qoladooda markaasi ay la macaamilaan. Holy Land si kastaba haatee waxa markaasi uu sii fiday in uu adeego isagoo oo aan meesha kaliya lagu cunanay in markaasi aad ka soo dalbato banaanka laguguna keeno haddii aad leedahay xaflad shir iyo waliba haddii aad leedahay barnaamij kale. Holy Land marka waxa uu haatan la tartamaya dukaamada waaweyn ee ku yaala gobolka Minnesota haddii Allah waddan ogolaado waxa ay yiraahdeen waxaan higsanayna in dukaamada sida Cap Food-ka oo kale aanu markaasi furno oo ay ka adeegtaan dadka iyagu markaasi aanan u dhalan aan ku dhalan waddankan laakiin se iyagu ka yimid meel kale ee jecelna cunadoodii in ay markaasi iyo dhaqankoodii ay isla haystaan.